الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان مرت شرفت isugu timid madashan maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii 7 2022 maalin khamiis ah waxaan buuhoodle ku soo dhaweynay marti sharaf leh oo isugu jira abwaano waaweyn bahda saxaafadda iyo qaybaheeda kala duwan kuwaas oo ka qayb galaya tartanka gabayada buuhoodle oo furmi doona berrito oo 15 bisha ah socon doonana insha Allah hadii Allah idma laba maalin ana ku hadlaya afka gudidii qabanqaabinaysay tartanka gabayada buuhoodle oo markii ugu horeysay buuhoodle ka dhacaya waxaan aad u soo dhaweynayaa marti sharafta kala duwan ee nooga timid magaalada Garowe iyo Laascaanood kuwaas oo isugu jira abwaano suxufiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada runtii buuhoodle waa gobolkii suugaanta iyo dhaqanka maanta dhalinyarada iyo qaybo kala duwan oo reer buuhoodla waxay isku kaashadeen in ay kor u soo kiciyaan dhaqankii iyo suugaantii ay Soomaali lahayd gaar ahaan gobolkani uu runtii caanka ku ahaa insha Allah hadii Allah idmo wafti balaaran baan sameeynaa gobolkani waa gobol Soomaali weyn oo dhan u dhaxeeya waa gobolkan aaminsanahay in shanta Soomaali lagu mideen doono waqtiga noqoto insha Allah hadii Allah idmo waa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ugu horreyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu mahad celinayna halkan suukan keenay soo dhaweyntan quruxda badan madasha bilan boqoran waxaan maanta soo gaadhnay gurigii gobonimada gurigii xorta gurigii ummadda Soomaaliyeed oo u dhaxeeyay halkan waxaan ku soconaynay wafti balaaran ay hogaaminayaan abwaaniinta Soomaaliyeed abwaan Jackadii cilmiga sidoo kale abwaan Ismaan Cabdunuur Xaashi ay weheliyaan qaybaha kala duwan ee saxaafadda iyo sidoo kale abwaaniin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka soo kala kicitimay Garowe Mudug Sool iyo Koonfurta iyo Muqdisho intaas baa waftigeena isugu jiray waxaan soo marnay dhul qurux badan oo dooga oo runtii intaan deegaanada soo mareynay abwaanada iyo qoraayinta sidoo kale waxay ka sameeyeen research bay ka sameeyeen deegaanka quruxdiisa sidoo kale waxa dheeray dad dhalinyaro nala socotay oo runtii halkan deegaankan ku cusbaayo oo markii ugu horeysay deegaankan tahay ay u tahay faa'iido fara badan waxaan rabaa in halkan ku soo dhaweeyo waftigan hogaaminaya Jackadii iyo sidoo kale Ismaan Cabdunuur Xaashi kelmadda Jackadii aan qaadan doona maadaama uu odayga noogu cuslaayahay Ismaan isaga ku soo dhaweynaya ama afka dhalinyarada ku hadlaya waxaan leenahay sida quruxda badan noo soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin gurigeygii baanu nimi tartanka bari furmayana si qurux badan oo wanaagsan ayaan uga qayb qaadan doonaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay haddaan ka saxaafadda nahay waxaan biyaamin doonaa buuhoodle inay tahay meel shanta Soomaaliyeed u siman meel la wada imaan karayo meel aan cidna ka xidhnayn oo Soomaali weyn oo siman tahay intaas ku soo gabagabeynaya reer buuhoodle quruxda badan sida kalgacalka iyo xurmada noo soo dhaweyseen aad baa maasantiin baa maasantiin tartankuna bari inoo bilaabmi doonaa hadii la haydno insha Allah waana taageersanahay waxaan ugu soo taraagnay oo soo safarnay aad baan idinku mahadnaqaynaa waxa weeye Ilaahay markii taraag dheerna waan soo galnay hadda saacadu waa meeqa baad u maleynaysan saddexdii shaaf sagaalkiina waanu soo baxnay inta raf baanu soo garaacinay in yaro ilaa guumaysira magaalada mooyaane Ilaahay markii waxaanu soo maray magaalooyin badan oo ay ugu horeysay guumays oo ay ka mid tahay Yeyle oo ay ka mid tahay ceegaag oo golshana ka mid tahay oo ka mid tahay tuuladii meesha dhixi ku tilmahay wadalaala waa dambaysatay galoolay hadaafina galoolay yay nimankaas ina ka xanaaqin oran cid baanu isu dhiibaynaa kale Ilaahay markiis galoolay dhinaalo haddana markaanu magaalada ku soo dhaweyn magaalo yaroo gaaraanu meelayaa waxa la jacayl geed weyn oo geedka jacaylka kaasoo kale inay igama muuqanayn laakiin ma jirto kale jacayl baa meesha jacaylku waa waxa meesha dejiyay bil ka hor ama bil muddo ku siman baa waxa naloo sheegay oo la yiri barnaamij baa ka jira waxa la idinka rabaa buuhoodle barnaamij baa ka jira buuhoodle Ilaahay markii haddii aan muddada dhan marba xakam ruug ahayn markii dambe waanu dabacno waxaanu isniri shaqadii xaggaasay ka dhammaatayoo dadkii waa soo batayoo مسؤولين كلا اللي هلا أبوانين بصوبة تيو صحفيين بصوبة تيو يعني هوشي إن لقى مارمي بان عنيقو أوقات إلهي أمريكي هدنا
وحوي أنا نين قنعية أما بوه هذا كقنعي كره أما بوه هذا نيع كره أما بوه هذا صدق شير ومر برهيرتهم هي يسكو قفتين ولا يسكو لاي صدق دبواني صدق دبواني سقط بقاضي ماش اللي يلاهدو شنقله iyo Soweto ilaahay amarkii baan saddexda gooraan maba isaga dabqaaday tolkay wanaagsan reer buu hoodle muxuu ahaa waxay mar walba lahaayeen ilaahay amarkii ana gabayada aan tirinayo annagu noo alifay gabaygana qolo waliba tidhaahdaa canaanta iyo waanada iyo murtida marka aan ku wada hadlayno ilaahay amarkii hadda maanta markaanu soo soconay wixii kala dib baynu iska waraysan doonaa halkan waxa ku jira marka hore macbuudka xamdulo mahadi wowgar magaaladan maslaxadda iyo danta iyo jecel masiirkeeda magaaladan milgiya haybad iyo wadata maamuuska magaaladan minhaajka iyo ku taal mudanka qaamuuska magaaladan murtidii dhaqanka iyo sidata miisaanka magaaladan magaydada dhashiyo macallimiin dhiiran magaaladan magaydada dhashiyo macallimiin dhiiran magaaladan mujtamaceedu yahay qaran ma dhaafaana magaaladan muwaadin isku xidhan mawle ku abuuray mabda fiican iyo wada jir baa lagu majeertaa waa buu hoodle ilaahay amarkiisa marka wuxuu yidhaahdana hamoodina hadda magaaladan markaan leeyahay buu hoodle qudhaan soo qaata magaceeda buu hoodle waa loo masharda markaan idhahdo haddana wuxuu yidhi hamoodina magaaladan inaan taagay meel qura hamoodina muraad aan ka helayaan muraad inaan ka rabo oon maslaxaya hamoodina mid hore aan ka helay mahadnaqiisii mudnaan iyo salaan miigan baan idinku maanshayn waa kulligiin ilaa miyi iyo magaalaba ilaahay amarkiisa dhammaantiinba rag iyo dumarba yar iyo weynba mudnaan iyo salaan miigan baan idinku haddaan taani soo helana ilaahay amarkii in aan u tago ilaa aad kaxaysaan idinkuna ilaa wardheer haddaad doontaan kaxaysaan وأن كل الفايز يسوي قدامنا حتاب أنا إسكاب حنو ساد بابا ديارو إلهي مركي هل كنا هوشن وينو كل ما دونتا سفي عم بينو كوكب سومي دونتا وحين نقف فرح سن بينو تاجي دونا إن شاء الله بإذن الله كريم